way ku habboon tahay inaad ilowdo xanuunka laakiin ha ilaawin kii beeray kama boqo tegitaanka cidda maanta tegaysa waxay ma doona berri mid ka wanaagsan waxyaabaha ugu fiican adduunka suuragal maaha inaynu aragno ama aynu taabanno balse waxaynu ka dareennaa qalbiga ixtiraamku waa waxa ugu quruxda badan ee uu qof kaga tago qulubta kuwa kale ma jiro dharka quruxda badan caafimaadka mana jirto qasnad ka qurux badan qanaacada waqtiga iyo muhiimadsiinta ayaa ka qurux badan kana qaalisan shay aad u hadiyiso qofku jecel kala fogaanshuhu wuu qurux badan yahay haddii isku dhawaanshuhu u eg yahay wax la'aan muhiimaha ciddaad tahay ahow garabkayga adoo qurux badan waxaan ahaan doonaa garabkaaga anoo ugu qurux badan haddaad ku fikirtay marna caydayda waa inaad laba iga ogaataa anigu kuguma yeedhin si aad u samayso waxaad la macaamilaysaa qof qaldan had iyo jeer kuwa aan doona inay joogaan waa kuwa igu horreeyey ee tegey cidda kuu dulqaadata adoo cadhaysan cidda ku difaacda adigoo maqan cidda kaa qoslisa adigoo murugaysan ha iska lumin hay weydiin maxaad u tagtay weydiin naftaada maxaad samaysay qofka aan kula joogin mugdiga uma baahnid iftiinka qofka aan kula joogin xaaladaha xun uma baahnid markaad ka baxdo mar kasta ashyaadu waxay muuqdaan in aynaan qaban karin in ay ku saameeyaan kelmad ama go'aan taasi waa arrin dabiici ah laakiin inay kula sii socoto saameyntaasi in ka badan sida sugan taasi waa ikhtiyaarkaaga waad kartaa inaad indhahaaga ka xidho waxyaabaha aanad doonay inaad aragto laakiin ma awoodid inaad qalbigaaga ka xidho dareenno aanad doonayn inaad dareento qofka ugu xaqiraadda badan midka kaa dharga diidana abaalkaaga kadibna ku dhaha maxaabad haysatay haddii aad doonto inaad ugu noolaato si isu dheeli tira noloshaada ka takhallus kuwa hadday kuu baahdaan ku helaya haddaad u baahatana aanad helaynin waxaan bartay in aanan ku kalsoonaan cidda iga sheekaynaysa dadka maxaa yeelay maalin buu naftaydana uga sheekayn doonaa dadka haddaad doonto inaad ku noolaato nolol fiican ku xidh noloshaada hadafyo balse maaha dad qayb ka mida raaxada in aanad kuwa kale isku xidhin qayb ka mida adaabta in aanad gelin waxaan macno kuu lahayn qayb ka mida xikmadda aamusnida